saliidda araggan waxay qiimo ahaan gaadhaa $300 halkii litir, taasoo ka dhigaysa saliidda adduunka ugu qaalisan ee ah mid la cuno. 20 sano ka hor wax soo saarka saliidda araggan waxaa laga yiqiin tuulooyinka miyiga fogfog ee Morocco, manay haysan wax iibsi caalami ah gebi ahaanba. Laakiin muddadaa kadib, samaynta iskaashatooyin ay haweenku maamulaan ayaa wax soo saarkii u beddelay kasab shaqo oo bilyanada dollar ku fadhiya. Haddaba maxay saliidda araggan si lama filaan ah ugu kasbatay caannimo? Maxaase qaali? Saliidda araggan waxaa inta badan loo isticmaalaa wax soo saarka qaaliga ah ee qurxinta iyo cunnada Morocco u gaarka ah. Saliiddu waxay ka timaadaa iniinyaha geedka araggan oo ka baxa keliya dhul yar oo ah lamadegaanka u dhexeeya xeebta Morocco ee Atlantika u foorarta iyo buuraleyda Atlas. Dadka Amaasiiqa ee waqooyiga Afrika ayaa isticmaali jiray araggan qarniyo badan, iyagoo yiqiin sida saliid looga dhaliyo. الحالة الأولى ديال الإنتاج منين يعني كان دابا حنا كنجمعوا أفياش، كنجمعوا هاد الحبة ديال الأركان، كنجمعوه ملي تيكمل النضج ديالو. يعني في الأول كيكون على هاد اللون هذا كيكون خضر، ما يمكنش لينا أننا نجو مثلا نضربوه بالعصا ولا نجنيوه في الشجرة، كنخليوه حتى كيطيح في الأرض وكيرجع في واحد اللون اللي هو بني. marka la ururiyo midhaha araggan waa la qalajiyaa oo qoraxda lagu wadaa ka hor inta aan la fiiqin oo gacanta lagaga saarin hilibka u dhexeeya lafta iyo diirka. Iniinta oo marka aan cad lahayn ayaa la jabiyaa si looga soo shubo saliidda dhex taal. وهذه كتبقى هي المرحلة الصعيبة، ماشي سهلة، ماشي أي واحد يجي ويهرس هاد الحبة هذه، لأن خص تكون عندك واحد التقنية في الطريقة ديال التهريس ديالها باش تحاول تحافظ على هاد اللوزة، ما خصهاش هذا باش اللي كيعطينا تقريبا 21 كيلو من هاد النواة. marxaladda xigtaa waa shiidid, taas iyana badiyaa gacanta lagu sameeyaa. يعني كنطحنوا اللوزات ديال الأركان بهاد الطريقة التقليدية اللي لقينا جدادنا ومعروفة في التراث المغربي ديالنا. هاد الطريقة هذه كتاخذ منا واحد الوقت، يعني باش نحصلوا على 1 لتر دي كيخصك تقريبا ساعتين. ولهذا فطورات وكنقدروا يمكن الا كانت عندنا شي طلبيه كثيره كنستعملوا الذهب الاحمر، يعني زيت غاليه بزاف وكتطلب في الانتاج ديالها واحد المجهود كبير. يعني بالنسبه لواحد المراه الا غتوجد لك 1 لتر ديال زيت اركان كيطلب منها تقريبا واحد 24 ساعه. cadka ka sarreeya lafta hoosta saliidda ku leh waxaa loo iibshaa calafka xoolaha, gaar ahaan riyaha, kuwaas oo si dabiici ah ugu xidhan geedka araggan. meelaha qaarkood waxaa caadada ka mid ah in adhigan loo oggolaado inay fuulaan geedaha si ay si xor ah ugu daaqaan midhaha. iniinta araggan ayaa markaa laga soo ururiyaa digadooda dhexdeeda. waxaa sidaa loo yeelaana waa hawl fududayn. beryahan dambe geedka araggan wuxuu soo jiitaa dalxiisayaasha si ay u daawadaan riyaha korsan. هذيك الزيت يعني ملي دارت عليها التحاليل ودرت لقوا بانها غير صالحه للاكل. اذا الماعز هو جزء من المنطقه والسياح يعني تعجبهم بزاف انهم يجيو يشوفوا المعزه فوق الشجره ديال الاركان. dhaqan ahaan haweenka Amaasiiqu muddadii ka horreysay 1956 waxay u baahnaan jireen oggolaanshaha ninka si ay uga baxdo guriga oo ay u soo gurto geedka araggan oo saliid wax lagu cuno uga samayso, taasoo jiilba jiil u gudbin jiray. saliidan lagu soo saaray sida farshaxanimada ah mararka qaarkood waxaa lagu iibiyaa wadada dhinaceeda iyadoo lagu shubay dhalooyin qiimahooduna gaadho ugu yaraan $3 litirkiiba. Et donc, on s'est aperçu en fait que les femmes qui préparaient cette huile, mais on n'avait aucune preuve scientifique. Subayda Jarof waxay markii ugu horeysay daraasadeeda PhD ku samaysay geedka araggan dabayaaqadii 1980-yadii, xilligaas oo tirada geedaha araggan ku jireen hoos u dhac aad khatar u ah. kadib markii ay samaysay cilmi baadhis sayniseed si ay u iba furto faa'iidooyinka saliidda araggan ay u leedahay timaha iyo maqaarka, Jarof waxay qorshaysay in ay u beddesho dhibaatada deegaanka xal kale oo dhaqaale keenay.
L'objectif n'était pas de garder ces résultats sur les tiroirs à l'université, mais sortir sur le terrain, organiser la filière. Organiser la filière, ces femmes qui ne savaient pas ce que c'est qu'une coopérative, ensuite ils ne sont jamais sortis de chez elles. Et donc quand même, on a commencé par ces 16 femmes. Hubaashii in ku filan waxay gaadhsiisay saliidda araggan korodh caannimo degdeg ah taas oo aan keenin faa'iido keliya ee wuxuu badbaadiyey xaalka deegaanka oo dhan. Qadarinta cusub ee loo muujiyey qiimaha geedaha araggan waxay xaqiijisay badbaadinta geedka lafahaantii waxayna dib u muujisay deganaanshaha bulshada iyo duurjoogta dirkaba. Geedka araggan waxaa deegaanka looga yaqaan geedka nolosha waayo wuxuu bixiyaa cunno, hoy, wuxuuna ilaashaa xaalufka. Xididadiisa qotada dheerina waxay ka hortagaan nabaad guurka ciidda taasoo u oggolaanaysa cawska dhirtu inuu isna qun u baxo. Waxaa la qiyaasaa in dhaqaalaha gobolka uu ka soo baxo boqolkiiba 90 geedka araggan. Il y a pratiquement 3 millions de personnes qui subsistent de l'arganerie parce qu'il fournit beaucoup de journées de travail pour les populations locales. Rien que la seule extraction de l'huile, elle fournit pratiquement 1 million de journées de travail. Hal jiil keliya qiimaha suuqa caalamiga ah ee saliidda araggan wuxuu ka kacay 200 soo saaristiisu ilaa uu gaadhay 4,000 oo metrik tan sanadkii 2019. Marka la gaadho sanadka 2025, hamiga gobolku waa inuu iibiyo in ka badan 10,000 oo metrik tan. Si loo xaqiijiyo kororka hamigaasi, dhulka laga soo saarayo saliiddu wuxuu ku fidi in ka badan 100 mayl oo ah koonfurta Eshoria ilaa waqooyigeeda. Sida walax kasta oo qaali ah, saliidda araggan badanaa waa la khaldaa. Ha yeeshee, si saafinimadeeda loo ilaasho waxaa lagu dejiyaa calaamad sheegta saxnimadeeda. Yeelkeeda midda aan calaamadaysnayn waxaa lagu daraa isku dhisyo kiimikaad. Qalabka jaban ee saliidda lagu riiqaa wuxuu suuqa kor u kiciyey $22 litirkiiba, taasoo khatar ku ah deganaanshaha iskaashatooyinka gudaha. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee isqurxinta sameeya sida L'Oreal waxay u diyaarsan yihiin kor u qaadidda ganacsiga si ay hubanti uga dhigaan ka ganacsiga saliidda araggan iyo ilaalinta deegaanka. Xirfado dhaqameedka ay qabteen dumarka Amaasiiqu ee koboca ganacsi sameeyey, laakiinse inkastoo dakhligani siiyey waxoogaa madax bannaani maaliyadeed ah bulshada raggu u taliyo, haweenku caadi ahaan waxay sameeyaan wax ka yar 220 bishii, taasoo ah mid ka hooseysa inta mushahar ahaan dawladdu jidaysay. Balse geedka araggan iyo wax soo saarkiisa saliiddu waxaa la saadaalinayaa in ay ahaan doonaan koboc sare u socda. Hodantinimada haweenka Amaasiiquna waxay sii ahaan doontaa negi.